عبد الرحمن oo la socodsiinayay warbixintii wariyaha BBC da Rana Jawad haddaba maxaa keenay in baarlamaanka Masar uu qaato go'aanka ay ciidamada ugu dirayaan dibadda maxaa ka dhalan karaya talaabadaasi su'aalahaas iyo kuwa kale ayaan weydiiyay Cabdiraxmaan Aadan Xadaana oo la fogura arrimaha carabta iyo dunida islaamka khadka telefoonka ee dalka Ingiriiska ayuu igu waramay baarlamaankani maaha baarlamaan si xor loo soo doortay waa baarlamaan si toos uga amar qaata Cabdul Fattah Sisi hase yeeshee baryahanba markii dagaaladan ay ka socdeen Liibiya Masar way ku jirtay dagaalka toos bay u taageersaneed Xaftar manay qarnahay hase yeeshee marka si sharci ah inay u soo gashay inaysa sida sharciga u soo gali kartaa waa inay baarlamaanka mariso marka baarlamaankii haba mariso laakiin ma sameyn kartaa baa la isku diidayaa dadkoo dhan waxay faalada ay ku sheegayaan inaanay Masar awood u lahayn inay soo gasho Liibiya sababo fara badan marka ugu horeysa horta Ruushka meeshii ku jira haddii ay soo gasho Ruushku bay la safaaysaa Mareykanna ma ogola in Ruush loo baneeyo Liibiya oo Turkiga waxyaalaha uu xagaha ugu fidiyay waxa kamid ah in uu Ruushka ka safeeyo Liibiya in talabaad NATO ayuu ka mid yahay Turkigu haddii uu wax weeyaan awoodda inta leeg ku soo galo oo NATO aan raali ka ahayn waxaan mabay dhaceen saddexaad oo ugu muhiimsana waxa weeyaan bariyihii ugu dambeeyay Turkigu awood wuxuu lahaa inuu dal shisheeye uu ka dagaalamay Ciraaq uu ka dagaalamay Suuriya uu ka dagaalamay ilaa hadda Liibiya ayuu ka dagaalamay intaba guul uu ka keenay laakiin Masar lixdanaadkii baa ugu dambeysay in ciidankeedu xuduudda uu ka talaabo marka ay lafteedu khibrad bay taasina u baahan tahay faraad ee la oran karo ma geli karto Masar waxa weeyaan dagaalka waxa weeyaan asbaabta dhaqaalaha oo aad iyo aad u liidata iyo taa waxa weeyaan iyada lafteeda haysato xagii biyaha oo ay hayaan Ethiopia intaas oo marka la isu geeyo wuxuu noqonayaa in hadalka ay leedahay waanu galeynaa Liibiya hadal ay meediada siinayso oo ay ku raali gelinayso dawladda Sacuudiga iyo dawladda Imaaraadka oo mar kastaba ogol oo doonayo dabada ka soo riixaya in Masar ay soo gasho Liibiya haddii ay dhacdo marka in Masar ay ciidamo u dirto gudaha dalka Liibiya oo ay awood ku gasho ma dal ahaan ay u istaagi doontaa oo ay dhinac colaadda ka galaysaa mise waxay noqonaysaa in si dadban ay u taageerto General Haftar iyo kooxaha kale ee mucaaradka ah ilaa iyo hadda bayaanka ay soo saartay waxay ku cadeysay inay xuduuduna ay tahay marka may sheegin Liibiya in ninkii Haftar iyo groupkiis ilaa hadda bayaankii may taageerin marka dadka oo dhan waxay faaleynayaan in ay doonayso in iyadu ay la wareegto hawshii Haftar laakiin aanay dagaal rasmi ah soo gelin laakiin si waxa weeyaan taageero oo kala ah haday tahay inay hubsiiso inay qabaa'il ka kiciso qabaa'ilkiiba u yeedhay oo waa waxyaalaha iyo aad loogu diiday bay kamid tahay dawladda Algeria oo colaad horena ay ka dhaxaysay Masar aad bay uga soo horjeesatay in qabaa'ilka la kiciyo waxay tiwilba hadal ay isticmaashay ay leedahay Soomaaliya kala ay noqonaysaa haddii Liibiya qabaa'il loo isticmaalo marka arrimahaas oo dhan marka la isu geeyo ma doonaysa Masar inay si toos u soo gasho laakiin dhabarkay ka soo riixaysa ama qabaa'il hataa inay hub soo siiso ama hataa garto inay dad u soo dirto dagaalka ku wanaagsan oo arfays iyo talo iyo wax weeyaan siiya qaabka ay dagaalka u galayaan waxaa jirtay in General Haftar ciidamadiisa ay horaantii sanadkan aad ugu soo dhawaanayeen magaalada Tripoli oo ay dawladda ka gacan sareeyeen laakiin markii dawladda Turkiga ay soo faragelisay arrintii ay isbedeshay marka haddii ay dhacdo taageero kasta oo la timaado dawladda Masar ma laga yaabaa inay dhanka kale u weeciso in si doontaba u weeciso laakiin anigu waxay la tahay in sida dawladda ay wax weyn Turkiguna ay sheegtay Trumpna uu sheegay marnaba ma ogolaanayo in laba dawladood oo la xulufay inay isku dhaxdilaan Liibiya marka anigu ismalihi Turkiga iyo Masar si toos ah iskugu hor iman karaan laakiin Haftar waa taageeraysaa Turkiguna sida muuqata ilaa imika weekan ay kala cadaanaysaa oo toos wuxuu doonayay inuu sirt u soo galo sirt hadduu soo galo wuxuu markaa gacanta ku dhigayaa petroolkii oo dhan jafrun baa ku haraysa jafrana waa dhiilka soo noqonayso in Masar garabyo badan ay yeelato waa run Masar waxyaalaha horta lagu dagaalamayo ugu muhiimsan waa inaynu fahanno Masar xataa markay imika soo galayso waxa ugu muhiimsan ee soo galaysa waa dhaqaalaha lagu dagaalamayo waxa weeyaan shacab fara badan oo malaayiin oo Masaariya ayaa ka shaqeyn jiray Liibiya haddii Turkigu la wareego dalkii masaradaasi awood ma helayaan ay ku shaqeystaan ta ugu horeysa talabaad ee lagu wada dagaalamayo ee Greeka Qobrus dawladda lagu leeyahay Talyaaniga dawladda lagu leeyahay Faransiiska maca Israa'iil مع لبنان dhinac ka soo galaysa waxa weeyaan badda dhexe ayaa gas badan oo trillion ma aha billion yani ka badan ayaa laga helay marka gastaas Turkigu takaliyo ku soo galay markii uu arkay in Greeka iyo Qobrus iyo Israa'iil ay ku heshiiyeen inay gastaas soo saaraan takaliyo ku heli karaa qaybtiisa waxa weeyaan inuu dawladda Liibiya ee la aqoonsan yahay uu heshiis la galo si badda isaga laftiisu dhinac uga soo galo
kaasi wuxuu ahaa cabdiraxmaan aadan xadaana oo la fagura arrimaha carabta iyo dunida islaamka oo khadka telefoonka igu warramaya halkaad naga socotaan waa laanta af soomaaliga ee BBC da